shirkii madaxda dowladda federaalka iyo madax goboleedyada ee lagu waday inuu horaanta bishan ka dhaco magaalada Garowe ayaa fashilmay sida ay wareedyo lagu kalsoon yahay noo sheegeen. xogag gaar ah oo la helayo ayaa sheegaya in shirkan ay si cad u diideen qaar ka mid ah madax goboleedyada xilli ay soo xoogaysatay is-aaminaad la'aantii madaxweyne xasan sheekh iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada. shirkaas oo markii hore qorshuhu ahaa in lagu qabto magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa loo wareejiyay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland kadib markii uu diiday madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen inuu yimaado magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. si kastaba ha ahaatee xog cusub oo aan ka helnay madaxtooyada Puntland oo qabanqaabinaysay shirka ayaa sheegaysa in madaxda dowlad goboleedyada badankood ay go'aansadeen in aysan imaan shirka meel kasta oo lagu qabto, taasi oo cadaadis ku kordhinaysa madaxweyne xasan sheekh maxamuud. madaxda dowlad goboleedyada qaarkood oo rumaysan in uu dagaal kaga wajahan yahay dhanka villa Soomaaliya. wararku waxay intaas ku darayaan in hadda dhammaan dowlad goboleedyada ay hadda hal mowqif ka taagan yihiin khilaafka villa Soomaaliya oo aynan jirin dowlad goboleed heshiis la ah dowladda federaalka ee Soomaaliya. Saciid Cabdulaahi Deni ayaa ka caraysan in Puntland la dhaafiyay xilkii ra'iisul wasaaraha iyo habka loo qaybiyay xilalka wasaaradda. Laftagareen wuxuu weli ka ciil qabaa xilkii loo dhiibay Robow. Axmed Madoobe macadda waxa uu tirsanayo, balse waxay u badan tahay inuu ku xiran yahay Saciid Cabdulaahi Deni. Qoorqoor wuxuu rumaysan yahay inuu socdo qorshe kursigiisa loogu diyaarinayo Abshir Bukhaari, halka Guudlaawe aan la aqoon waxa uu tirsanayo.